daawaday dooda ka iba furantay dergada baarlamaanka Britain ee magaceeda la dhaho Westminster waxaa xubnaha meesha gowdida oo dhammaa waxaan ka badnay 30 mudane warmaha isugu dhiibay xildhibaanka la dhaho Gavin Williamson oo isagu iska lahaa markii hore in badka la soo dhigo Somaliland waxna la iska weydiiyo ilaa war la heliyaaba tale la heliye wuxuu ku bilaabay hadalkiisa Somaliland waa meel aad muhiimadeeda u leh waana meesha labaad ee ugu weyn ee ay marto sahayda ama wax jidiinka la mariyo dhammaan careedeeg marka laga yimaado buu yiri dhulka kanaalka Suez haddaba waxaan soo jeedinayaa aan ogtaa ka duulaya in aqoonsi la taarto Somaliland waayo buu yiri dadka deegaankaasi waxay dib weyn kala kulmaan waraaqda dalku galka ama loo yaqaano baasaboorka si ay taas uga nabad galaan oo aanay ugu dhibtoon waxaan soo jeedinayaa in Ingiriisku aqoonsado Somaliland inkastoo xildhibaanka dooda qaybinaya aanu carabaabayn sidoo kalena sheegayn magaca hadba mudanaha uu ku soo dhaweynayo dooda waxa hadalka holaday ama loo dhibay mudana kale wuxuuna u yiri aniga aabahay ayaa xiriir gaamuray la lahaa Somaliland wuxuuna iga sheekeeyay ilaan mahadho iyo taariikh baan kala hadhaye inay yihiin dadka ku nool waqooyiga Soomaaliya gaar ahaanna ay taxdigaan duul karti badan oo aan daalin yoolkoodana ka midha dhaliya xilli kasta hala gaadhe wuxuu ii sheegay buu yiri aabahay inay ahaayeen dad nagu adag hase yeeshee taasi waxay ka dhigan tahay inaynan marnaba garab saarin dad jilicsan waxaan anigu soo jeedin lahaa buu yiri welibana aan faraya xukuumadda Britain inay sidii qaran jira u ogolaato inay ka mid noqoto dalalka careedeeg taasna ay dhaqso uga caawiso markay halka marayso ayaa ninka xildhibaanka ah ee dooda soo jeedinaya wuxuu sheegay in Somaliland ay ka barbar dagaalantay ciidamada qalabka sida ee dalka Britain gaar ahaan labadii dagaal ee la isku madoormay dunida dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee careedeeg waxaad ku arkaysaa buu yiri xabaalihii raggii naga dhintay si calanka Ingiriiska aan cadcad uga dhicin miyaan ahayn buu yiri inaynu noqono dad u abaal guda jiilka ay ka tageen dadkaasi isagoo hadalka sii wato xildhibaankani wuxuu sheegay in amintan la joogo Somaliland laga xuso loogana barordiiqo halgamayaashii labada dhinac ee ku leeday dagaalkii labaad ee dunida sidoo kale dooda waxaa lagu amaanay isna duqa deegaanka Sheffield oo la sheegay inuu taxdigo kana soo jeedo waqooyiga Somaliland mudanaha dooda raxan shubay ayaa soo jeediyay in dawladda Ingiriisku ay ku dabafaysho duqa degmada Sheffield oo buu yiri tusaale lagu dayday oo ah Somaliland aynu halkan ku hadalhayno wuxuu sheegay in baadigoobka Somaliland uu inaga filan yahay maayarka degmada Sheffield markay halka arintu heetinayso ayaa la guda galay wixii looga soo joogay Somaliland iyadoo la amaanay laguna faambiyay inay wax lagu farxo tahay doorashooyinka isku sidkanaa ee wakiilada iyo deegaanka kana hilgaray Hargeysa waxay bitiyeen sidii ay ahayd loogu kala baxay iyadoo xukuumadda madaxweyne Biix oo mindida daabkeeda haysa taasoo ka gaban gaabsatay iskana gudhisay inay u dhaqato qaabka looga bartay duulka Afrikaan la yiri in la wadi jiray oo ay doodu afdheerayso maadaama ay ulkamaysa ku dhawaad saacad 10 daqiiqo dhiman waxa geedka u baxday gabadh xildhibaana waxay sheegtay iyadu in jaaliyada Soomaaliyeed ee ugu badan deegaanka Wales ay yihiin reer waqooyi isla jeerkaasna ay yihiin intay ka aragtay dad aan la dhayilsan oo ay la dhacsan tahay tiyo taas laga duulayana waa in la aqoonsada oo gobada lagu dhishiyaabay tiri Somaliland markale dood soo jeediyaha ayaa taariikhda dib u raacay wuxuu dawladdiisa ka durantay inaanay dib u jilcin wixii gugii 1960kii oo Somaliland la furiyo foodleysay kadib markii ay Ingiriiska uga jadeer wacday madax banaani dal gaar ah oo ay xilliga heli lahayd iyadoo siyaasiyiintii waagaasi ay u dhuuheeyeen jagleelida jamhuuriyadda Soomaaliweyn oo la sheegay in goor dambe laga jabay kubka iyo bowdada wuxuu intaa ku daray intaasi dalow kan laga tuuro oo maanta la joogo waqtigii dalalka la isku dhaho barwaaqo sooranka afka qalaadna lagu dhaho Commonwealth ay sibraarka ugu biyeysan lahaayeen Somaliland laga dhigo madaxa banaan mudana kale ayaa isna soo jeediyay in Somaliland lagu taaguleeyo dhanka waxbarashada iyo looxdhigaalka maadaama uu yiri ma jirto buu yiri Somaliland meel ay ku kala socday hablaha iyo wiilasha waxayna simeen buu yiri xaq u helida dhanka aqoonta ee labka iyo dhidiga ninka dooda kale tashiilayay ayaa mar kale ku soo laabtay wuxuuna soo qaatay wixii la baday dadka Somaliland ee uu ku falay kaligii taliyihii dawladda Soomaaliyeed ee iyagu amaamudeen gaar ahaan Jaalle Maxamed Siyaad Barre wuxuu si qiiro leh oo moodo in ilmo indhihiisa isku soo taagtay u cadeeyay in la isu la galiyay loona adeegsaday awood ay wax ku lahaayeen wuxuu sheegay in la isugu daray dil qax kufsi kondas kadaal iyo antaweer ay dawlad ku mareen dalalka jaarka oo qaarna oo ka rogan waayeen dar kalena afsaarta u dhacamiyeen malaha waa meeshii uu lahaa abwaankii reer waqooyi ee Somaliland u dhashay allihii dulcad iyo darorna dhigow adaa daayina dib noo celi isagoo sii gurbanaya hadalkiisa wuxuu sheegay